iyadoo ay jiraan marba marka ka dambaysa ciidamo ka soo goosanaya booliska Somaliland isla markaasna ku soo biiraya maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia ayaa waxaa maanta magaalada Buuhoodle si weyn lagu soo dhaweeyay ciidamo tiradoodu dhan tahay 50 askari kuwaas oo sheegay inay ka soo goosteen booliska Somaliland isla markaasna ka kala yimaadeen waxa kuwa ka kala yimid deegaamo hoos yimaada isla gobolka Cayn deegaamadaas ay ka mid ahaayeen magaalada Woodwood Balcad iyo waliba Axmar lagu xidh waxaana booliskan maanta laga hortagay meel hilaadii 5 kiiloomitir kaga beegan dhanka bari magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn halkaas ay ku soo dhaweeyeen wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia Mudane Yaasiin Axmed Sulub iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia iyo wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ciidamadan oo tiradoodu dhammayd 50 askari ayaa iyagu ahaa kuwa u soo galay maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay taliyaha horkacay ciidamadan ka soo goostay booliska Somaliland isla markaasna ku soo biiray maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia 53 waa feeska hore ee ciidankii ka soo wareegay maamulka Somaliland ku soo wareegay Khaatume feeska labaad waxa weeye gurmadka deegaanka laga soo raacay oo feeska labaad ee fashion ee naga xiga garabka bidix waad jeedaan annagu soo biiray deegaanadayada lagu hayo cadaadinta faragelinta Somaliland ay ku hayso maamulka beesha ee aan qusayn adduunweynaha Soomaaliya waxaanu markaa anagu istusnay annagoo ka tirsanayn maamulka Somaliland inaan ku soo wareegno beesha Khaatume State waxaanu ku ballan qaadnay inaanu awoodda aanu leenahay ee nagaga biirtay markii hore reerkaas maamulka sheegtay inaanu inta naga hadhayna gabadh furan ku soo dhaweeyno nana daba socdaan kana soo baxayno oo aanu keenayno goobtan intayadan waxaanu ka midaysanahay inaanu shahiidno ku dhimanno dalkayaga iyo dadkayaga sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia Mudane Yaasiin Axmed Sulub oo uga mahadnaqay sida sharafta ay ugu soo biireen maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia waxaan marka ugu horeysaan halkan mahad uga soo jeedinayaa Ilaahay iyo xubnihii ka shaqeeyay inay arrintan qabsoonto ay ka mid ahaayeen wasiirka xiriirka dibadda Xuseen Salabaan Axmed Chief Caaqil Axmed Saalax Maxamed عبد الرشيد ضفر محمد ضفر iyo rag kale odayaal oo arinta ka soo saardiid barre bulaale cabdirashiid saardiid barre bulaale oo ka soo shaqeeyay arintan inay suurta gasho mahad baan u naqaya waxa inta ay raacdo ay dad badan ay ka waanin jirtay waxay ay ku soo biireen waxay leedahay soota iskaalo mid baa loo soo hoobanay hal imika waa soota iskaalo waxa rajaynayaa wixii xalaala ee reer Khaatume ee ku maqan dadka aynu dariska nahay inay soo baxayaan insha Allah halka noogu imanayaan ku soo dhaweynayno bismillaahir rahmaanir rahiim waxa mahad leh Ilaahay waxa mahad ka leh odayaasha wasiirka Yaasiin Axmed Sulub iyo dadka wasiirka xigeenka oo si diiran loogu soo dhaweeyay halkan annagu dadka deegaankana talada ayaa ka baahsanayd taladii dadka deegaankan degan ama dadka reer Khaatume waxa lagu soo urushay taleex sida aad arkaysaan ciidamadu inay meel walba uga soo baxayaan baa taladooduna u urursan tahay iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo galayaan ciidamo ku soo biiraya maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia ayaa waxaa maanta soo galay cutubbo ciidamo ka hore u tirsanaan jiray maamulka Somaliland isla markaasna si rasmi ah ugu soo biiray maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia Chief Abdulla Abdixiis telefishinka caalamiga ee Somaliland sidoo hore dagaalka